السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dadkayga aan jeclahayow haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkeena aad soo booqato fadlan nagu taageer share like iyo warcelin dhiirigelin ayay noo tahay kula wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan nabad qab iyo caafimaad ayaan idin rajaynaynaa kusoo dhawaada mawduuca goor iyo goob casharkiisii saddexaad waxaa qoray mawduuca kan Dr. Saadiq Qeenow oo qoraalku waxa ay u dhowran tahay qoraaga dadka jecelina dabeecadda sahmiyaan kuwoodii ugu xigmadda badnaa waa kuwa ku mashquulay sahanka goor iyo goob baadigoobka labadan agab waa mawduuca ugu da'da weynaa uguna milgaha culus ee aadmigu uu isu jabiyo cashar walba oo lagaga hadlayo goor iyo goob iyo cid walba oo ka hadlaysa xaqiiqadu waxay tahay in laga helayo ogaallo xiiso badan ka sokow xiisaha uu mawduucu leeyahay iyo fahamka qurxoon ee xeerarka laga dhaxlay ogaalka goor iyo goob waxay qofka u furfurayaan maskaxda iyagoo ku dhaweynaya inuu fikradaha hagaagsado arrintaasina waxay u xoojinaysaa yaqiinta caqiidada saxda ah iyo ilaaha iska leh abuurka iyo maamulka nasiib darro manaahijteena cilmiga ee aanu ardayda barno waa ay ka maqan yihiin aragtiyaalkan goor iyo goob sida aanu soo xusnay waxay ka mid yihiin afarta wax ee saldhigga u ah uunkan kuwaas oo kale ah goor time goob space walax matter iyo tamar oo energy ah afartoodu labo ayay isugu mataanaysan yihiin ma jirto goor aan goob ku dhicin isla markaasna ma jirto goob ayaan goor ku socon sidaas si la mid ah ayaanay u jirin walax ayaan tamar weelin waxaa kaloo aanan jirin tamar aanan walax ka iman goor iyo goob nolosheeda wax dheeha iyaga ayaa ugu milga culus maalin walba waxyaabaha aanu isweydiinno waxaa ka mid ah goor maalin walba waxyaabaha aanu tilmaansanno waxaa ka mid ah goob qofka caadiga ah goor wuxuu u arkaa muddada ay falalku ku dhacaan goobna wuxuu u arkaa meesha ay falalku ka dhacaan sidaa darteed waxay uga muuqdaan kuwo aanan fasiraad u baahnayn laakiin markii aanu raadinno fikraddii aanu ku fahmi lahayn waxa ay yihiin waxaanu helaynaa inay ku kaydsan tahay mug weyn oo ah tilmaamo la xiriirta garashada waxyaabaha dabiicadda nagaga qarsoon metaphysics ogaalada bilowga ah waa ay leeyihiin goor iyo goob waxaa ka muuqanaysa sida ay isugu guntan yihiin garashadooda dhabta ah iyaga oo wada jira ayaa misana waxay ku guntan yihiin jiritaanka uunka dhaqdhaqaaqa walxaha nafta nololayda iyo caqliga aadmiga goor iyo goob ma aragno oo inooma ay muuqdaan misana nolosheena iyaga ayaa xukuma waxaanu ku dareemaynaa hurdada iyo soo jeedka waxaanu ku dareemaynaa garaaca wadnaha iyo marar celiska nafsashada waxaanu la dareemaynaa howlmaalmeedka goorahooda iyo goobahooda laakiin waxaa isweydiin leh goorta iyo goobta sidaas inoo weheliya ma yihiin wax jira oo aanu garan karno baadigoobka ogaalka goor iyo goob waa doonista xaqiiqada uunka iyo sirta ugu dambaysay ee nolosha nagaga qarsoon sidaa darteed ayaa aadmigu muddo 2500 oo sano ay isweydiinayeen waxa ay yihiin goor iyo goob in la haleelo waxay ka mid tahay qadiyadaha ugu milgaha culus ee ay ka doodaan filosofiyiinta xigmadyahanada aqoon-yahanada iyo abwaanada hal abuurka leh ee bahda aadmiga ah u dhashay ama kuwoodii hore ha ahaadaan ama kuwa casriga ah ha ahaadaane iyagu isku si ayay maskaxdooda u mashquuliyeen iyagoo isla markaas wax badan oo fikrado ah ka dhiibtay goor iyo goob gaar ahaan xikmadyahanada filosofiyiinta ah oo iyagu weligood ku kala qaybsanaa tilmaamahooda ayaa qolana waxay qabtay in ay yihiin abuur naga madax bannaan oo gooni u taagan marka uu qofku indhala-aan dhasho wuxuu waayey araggiisa sidaa darteed noloshu wuxuu u kaashanayaa afarta dareemayaal ee kala ah maqalka taabashada urinta iyo dhadhanka qofkaas waxaa ka maqan wax badan oo ogaalle ah kuwaas oo qofka indhaha leh uu helayo ninka indhahala uma qiimaysana waxyaabahaas aanan u muuqan sidaa darteed agtiisa wax jira kama ahan ilaa ay dareemadiisa soo gaaraan sida in uu uriyo ama uu taabto ama guuxooda uu maqlo sida ninkaas indhahala ayay uga maqan yihiin ogaallo isugu jira wax jira iyo wax aanan jirin kuwaas oo uusan garan karin sidaasi si la mid ah ayaa aadmigu uga indhala yahay goor iyo goob innaga oo tix raacayna taariikhda sahanka dheer ee aadmigu ku baadigoobayay goor iyo goob waxaanu ka eegaynaa xaglaha aqooneed ee laga raadiyay helidooda xaglahaas oo saddexa ayaa waxa ay kala yihiin xagal falsafadeed xagal fiisiko iyo xagal diineed xagasha falsafadda goor iyo goob waxaana looga maarmin in aanu dib u jallacno aqoontaha jiritaanka anthology iyo aqoontaha garashada epistemology kuwaasoo goor iyo goob ay u yihiin udubdhexaadka aqoonta falsafadda analytic philosophy dhanka fiisikada iyadana waxaanan laga maarmin in aanu dib u jallacno aqoonaha kale ah handasada uunka universal geometry iyo fiisikada imisaaleyda quantum physics kuwaasoo iyana ah labada aqooneed ee ugu dhow in ay ka warbixiyaan goor iyo goob dhanka diinta
iyadana waxaana laga maarmin in aanu dib u jalleecno qaybo ka mid ah aayadaha qur-aanka iyo oraahihii laga dhaxlay suubanihii Muxamed ahaa shacni iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee, gaar ahaan kuwooda tilmaamaya mucjisada ay leeyihiin goor iyo goob. su-aashii ahayd maxay yihiin goor iyo goob, jawaabteeda xaglaha saddexda ayaanu ka helaynaa inta garashada aadmigu ay ka fahamsan tahay. saaxiibayaal, waxaa inoogu eg intaasi qaybteennii saddexaad. fadlan nagu dhiirigeli subscribe iyo share deena ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh.